anigoo Habiiba Xasan Sheekh Abdi mayrooga degmada ka hada kaamka bulsho bila iyo rooga may ka noole 4,000 qof iyo ka noole biyin alxamdulillah biyin nadiif nasiidi wasaaradda tamarta iyo biyaha wasiir Xasan Abdinuur oo nasiib biyaha alxamdulillah usinka mahad ilyaan ilaaha mahadillah maamulka degmada yaanka mahad yaana alxamdulillah ilaaha mahad ishukrillah biyo lacag ma بسم الله الرحمن الرحيم ما حسنتين وسارد بيها نسيسي العقلنا كعبنا غير الله سيء وسيرك حسن ومحسن سنة غير الله سيء هايد سيدو كلام محسنتها غير الله سيء عند حسنات الله كسير بيها العقلنا كعبنا وعبدنا والله لو بقول حوانا غير أجر حسنات الله عندك سيء بيها نوع وسير وحنتيجا أنا وحكي إيمانية maamulka degmada Kaxda gobolka Banaadir waxa uu uga mahadcelinayaa wasaaradda biyaha iyo tamarta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda UNICEF dadaalka ay ku bixinayaan bulshada degan degmada Kaxda gaar ahaan qoysaska barakacayaasha ee ku nool waaxda saddexaad waxaan sidoo kale uga mahadcelinaynaa dadaalka biyaha lacag la'aanta ee nadiifta ay siiyeen taasoo soo bilaabatay xilligii adkaa ee uu jiray cudurka coronavirus COVID-19 qoysas gaaraya 7,000 kuwaasoo ku nool santarro kala duwan waxay sidoo kale ka caawiyeen agabka ka hortagga cudurka coronavirus alxamdulillah inkastoo aysan dhicin kiis dad u dhintay oo kamid ah qoysaska barakacayaasha laakiin dadaal badan oo ay sameysay wasaaradda taasoo u suurtagelisay qoysaska inay helaan ilaa iyo 7 xabo bahladan haamanka gacmaha la iskaga dhaqo golofyada iyo sidoo kale kiniiniga biyaha nadiifinaya marka waa uga mahadcelinaynaa dadaalka uu gelinayo wasiirka wasaaradda mudane Xasan iyo hay'adda UNICEF ama santiin